heshiiska shidaalka ee Soomaaliya iyo Turkiga ay wada galeen dukumentigii ka soo baxay waan wada aragnay dadna negative ayay u arkeen dadna positive ayay u arkeen dadka negative u ark ayaan ka mid ahay aniga waana idin qodobeynaya marka koowaad heshiiskan waxaa soo qoray aqoon-yahano Turki ah Soomaalida wax aqoon-yahano heshiiskaas la dhiilgareynaya Turkida ma aysan jirin waxaana ku cadeynayso heshiiskan waxaa arkay hal wasiir kadibna madaxweynaha la tusay kadibna waxa loo gudbiyay baarlamaankana waxa lagu dhahay heshiiskan ha kala furinina saxiixa sidaas ayayna ku saxiixeen wax aysan arkinin ayay saxiixeen baarlamaanka Soomaaliya siyaasiyiin badan oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ugu horeeyo waa ay ka hadleen taas waxa ka arkaysaa heshiiskan inaan ku gaadanahay oo sababtoo ah Turkiga heshiiskan baarlamaankiisa la horgeeyay way ka doodeen kadibna way ansixiyeen taasina waxay ku tusaysaa inay tahay meesha hoosaasin midda labaad heshiiskan 90%ga ee cost recovery-ga aad ayuu u badan yahay waan fahansanahay in 90% ee weliga Turkiga aysan yeelan doonin laakiinse cost recovery-ga meeqa bilyan ayaa ku bixayso heshiiskan meeqa sana ayay socon kartaa taasi isweydiin weyn ayay u baahan tahay waxaad arkaysaa in 90% oo 5% ee dad kale ay qaadanayaan dawladda Soomaaliya ay leedahay 5% oo royal ah taasina wax weeyaan mid fire ah maahan sababtana wax weeyaan Soomaaliya hadii shidaal loo soo saaro cadow badan ayay yeelanaysaa waxa laga jaran doonaa dhaqaalaha sidaas daraadeed ugu badnaan heshiiskan cost recovery-ga uu Turkiga qaadanayo waa inay ahaataa 60 ilaa 50 inta u dhaxayso Soomaaliya waxay u baahan tahay shidaalkaas markuu u soo burqado dib u dhis waxbarashada ha ahaato wadooyinka ha ahaato infrastructure-ka ha ahaato iyo in lagu dadaalo dad skills aqoon leh isla markaana loo diyaariyo Turkiga marka ay u dhamaato inay kala wareegaan shaqada sidaas daraadeed cost recovery-ga waqtiga ay qaadanayso inay dhaaraato Turkigana uu meeshaas heshiiskaas uu ku joogo waa sida saxda ah risk management dad ayaa ka hadlayo risk management-ga Turkiga hadii uu heshiiskan galay micnaheedu waxa ay tahay in uu muddo dheer wana la joogaa degdeg ma jiro oo 90% uu ku qaato